mawliid qowdhan siciid gudoomiyaha bacadlaha suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa oo u waramay telefishinka Sam News ayaa ka hadlay olole ballaaran oo dhinaca wadooyinka lagu baneynayo oo dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ay ka bilowday bartamaha magaalada Hargeysa ee suuqa waaheen. wadooyinku waa qaar loo baahan yahay oo Soomaaliland dhammaan waxa u baahan oo mantay marka wadooyin in kulladayna reer looguma taliya baa leeyo wadooyinku way ku mustarayna laakiin wadooyin baa ay qorshaysnaayeen oo ahaayeen markii dad magaalada isku xanibantay waxa ka mafsaan noqday turaala badan dabadeed in wadooyinka banaanaadaan marka waxaan leeyahay anigu ololahan mid loo baahnaa buu ahaa waan sii soconaya haddii aan la yiraahdo waxaan u sheegaynaa qolada dawladda hoose dadka inay wacyigelinta horta ku yar badiyaan oo dhowr cisho ay siiyaan qolo walba inkastoo ay shalay soo mareen oo ay siiyeen digniinta bixiyeen oo ay yiraahdeen macnaha dadku ha ka gurto tan kale maaragta dadka waxa weeyaan wadadu wax loogu tala galay wado guriguna waa guri in badan bay dawladda hoose nagu saaciday tiray macnaha dadku iskaga ganacsado oo maaragta dadka la saaciday marka way ka fursan weyday in la baneeyo markii wax walba isku xallimeeyeen maaragtay dababka iyo sida wax u socdaan la arkay waxaanu sida dawladda hoose ku boorinaynaa haddii dadka maalin uu la tisbiyo khasaaro ma ku jira in lagu ilaaliyo dadka imika halka la gaarsiiyo iyagana aan khasaaradda ma ku dhicin dadkii shicibka misba la sii hordhigayaa يعني واحد نقول يساويه بروس كسر نقوليه هدانو بعانو كبقنا عرق. gudoomiyaha suuqa bacadlaha magaalada Hargeysa ayaa sidoo kale taabtay dhibaatada suuqa bacadlaha ka haysatay dhinaca wadooyinka xiran ee cidhiidhiga ah isagoo dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ku bogaadiyay wadooyinka ay baneysay. يعني wadooyinka in qof maartay misdhex yaalo meesha laga qaadamo in la baneeyo dabdaan isku mari karo oo dadkii la soo turkiyo markaati waanu bilownay rayidku ma kala gar qaato markay maalin laba cisho banaanayd askartii kimti waxba soo gali waan dadka halka ugu soo wada noqday marka insha Allah horta qof meesha laga saarayo wuu yaryaanba ma jiro waa qof meel laga maran la waayay imka saacadan waa barandaha wadada la dhex dhigay iyo mismadadii bartankeedii yaalo meel laga maran la waayay وده بقول قولي مركو وضو نقطو شرايو يتوبن كميس با فضل لقى قاعدة ماشي فماها لكن قف ماشي لقى ولا طورة يا متشو. mawliid qowdhan siciid gudoomiyaha suuqa bacadlaha waaheen ee magaalada Hargeysa ayaa geesta kale fariin u diray guud ahaan dadka ku ganacsada suuqaasi waaheen la shaqeeya micnaha qof walba gurigaaga kugu filaan doona kii guri haysto barandheeha ka daa oo gurigaaga iska joog kii dibadda deganowna ee la dejiyo amba wadada dhan uga yar barbarsanowna inta laga rarayo intii lagu ogaa tag oo wadada banee way naga banaanayso wadanku nagu filayay wadada banee idinkay dantiina tahay oo ma aragtaade meel la idinka baqtiyo hadduu hantidiina dab qabsado iyo lafiini ayaa loo baahanyay tala banaynayana waa taa maayurku ku baneeyo soo degi maayo cid kale ma keenayo marka waxa weeyaan imika waa loo soo labadiblaystay wadadii waa laga maarmi waayay dadka waxaan ku boorinayaa inay kii guri hayaana gurigiisa ku ogaado kii meel yar lagu ogiyo kala joogaana uu meeshiisii tago cidii waxa wax ka gudubsan samaysa ballan baa ka yaal waa la duminayaa waa laga saarayaa waa mawliid maxamed siciid Sam News TV magaalada Hargeysa.